اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وصحبه وسلم. وسلام يا قلت الحمد لله رب العالمين وعلى ما تعلني يا الله. انت اسكدي بو حرمينا السلام وسير فقيق وسارده ربا غداها قدوميها gobolka agaasimaha waaxda dawladaha hoose abshir wakiilada xisbiyada agaasimihii hore wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaanada deegaanka oo gudoomiyaha la doortay ugu horeeyo gudoomiyihii la tartamay saaxiibkiis ku xigo dhamaantood xildhibaanada nabadoonnada dhammaan waxa weeye dadka halkan isugu yimid oo reer Dangoreey waxaan ku salaamay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacsa ilaahay ma hadle doorasho fiican baa inoo dhacday waxaan kala aad iyo aad ugu mahadcelinayaa horta guddiga doorashada oo arrinta quruxda badan oo fiican oo wanaagsan inoo daadiyay inoo qabtay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guuleystaan idin leeyahay mar dambana shaqooyin baa la idin diri doonaa maadaama shaqadina la arkay si fiican u qabateen qodob kale waxaan inta markaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyihii la tartamay gudoomiyaha degmada oo waxaan baliyay saaxiibkiis aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waa la tartami jiray waa dhici jirtay maadaama aad garatay in laga guuleystay aad mahadcelisay inta markaan soo gudbo waxaan rabaa gudoomiyaha la doortay hambaliyo gudoomiye waan ku hambaliyaynayaa maxamed cabdi casiid xasan waa ku hambaliyaynayaa waan ku ducaynayaa ilaahay waxa isleeyahay xilka lagu doortay ha kugu astro xilka lagu doortay waxa la rabbiga ha kugu astro waan lagu doortay aqlabiyad baa ku dooratay xildhibaanadaadii ku kale waa ku taraasula saddex meelood oo laba meelood baa ku doortay waa aqlabiyad ay yartahay hadeer in lagu doorto dad markii hadeer la fiiriyo degmooyinka soo baxay kuwa kale oo saaxiibkaaga ku hogaamiyay najiib na way ku taraasuleen wuuna ballan qaaday inuu kula shaqeynayo maadaama inta aad haysato shacabkaaga kula shaqeynaya dawladuna kula shaqeynayso horta arrimihii dardaaranka wasiirka arrimaha soo jeediyay waxaan rabaa inaad ku shaqaysid annaguna waa kula shaqeynaa gobol ahaan iyo wasaarad ahaan dawlad ahaan waxaan rabaa degmada Dangoreey oo aan wax cashuuri ka socon oo cashuurta horumarinta degmada loogu talagalay wax ka socda ayaan jirin reer Dangoreey waxa la rabtaa konsolka aad doorateen wiilashiin iyo gabdhihiin aad soo doorateen inaad kula shaqaysaan inay kiciyaan cashuurtaas annaguna diyaar baan u wala shaqeynaa reer Dangoreey inta saan ornaya kala waxaan leeyahay waxaad ogaataan xildhibaanada dawladda Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha ka yahay madaxweynuhu wuxuu qaatay go'aan ah haddii xisbiyadii la doortay oo yaantiroon la doortay waxba isqabsad meel walba ka soo baxay go'aan buu gaaray madaxweynuhu khayr Allah siiyo waxaan leeyahay wuxuu yiri hal tartamo waad garanaysaan aqlabiyada Dangoreey xisbiga ka habaale baalay waa u taraasulay waxa la yiri hal tartamo waxa sidaas loo yiri siyaasaddaas la qaatay dawladdu qaadatay inay wax la yiraahdo campaign gal ciidu campaign galeen iyadoo campaign gal xisbigeedu u campaign galeen xisbi kale u campaign galeen siyaasadda dawladdu waxay u qaadatay oo saas lagu go'aanka madaxweynaha baa la qaatay qof dawladda ah inuu sacuudu campaign galeen hadda horta aragtaan awal reer Dangoreey waxay ka caawin jireen cid baana loo doortay waxaan u maleynay maanta inaan oranayo dawladda iyo cid kale mid cid baana loo doortay wiilashiina aad doorateen baa is doortay dawladda siyaasadeedu waxa qaadatay inay idinku istoorataan si loo helo wada shaqayn wanaagsan wiilashiina aad doorateen iyo gabdhihiina baa idin jooga qof kasta oo dawladda anaga ka mid ah anigana ha ahaade oo cid u campaign gareeyay nimanka labada hadda la doortay midka la doortay kale waa waxaan waa qof ku shaqeynaya siyaasadda dawladda ka baxay ogaada annagu campaign kama gelin kama shaqeyn xalkoodii baan waxaan u iminta dadku soo jeeda yaa leeytuun sida darteed baan u cid kastana waxa wasiirku barqadii buu yimi waxa ogaataa waxa weeye waxa loo yimi inaad idinku istoorataan kalsoonidina idinku siisaan wadana shaqaysaan waxaan idinka codsanayaa inaad gudoomiyaha la doortay ka shaqaysaan cashuurta la kicisaan idinku aan ciidan haaramayn maadaama wiilashiina aad doorateen iyaguna gudoomiyaha doorteen oo wax way aqlabiyad xoog ku doorteen kuwa kale u taraasuleen aad baan ugu mahadcelinayaa sida aqlabiyad aad isu doorateen najiibna waxaan ugu hambaliyaynayaa mar labaad ugu mahadcelinayaa sida fiican oo tanaasulka wanaagsan oo ku tanaasulay waayo waa la tartami jiray waa run maanta hadduu tartamo marar kale u tartami doonaa intaas markaa soo dhaafo ka soo gudbo
waxaan leeyahay aad iyo aad baan waxaan leeyahay horta reer Dagorayo aqlabada joogta waxaan rabnaa inaan shaqo wada shaqeyno kala shaqeyno danaha Dagorayo dadkan waxa loo doortay oo xildhibaan u inay darihiina ka shaqeeyaan haddaydina idinku la shaqeyn marka danaha kama shaqeyn karaan waxaan codsanayaa reer Dagorayo konsulkii aad doorteen oo Maxamuud Cabdicasiis Xasan doortay inaad la shaqeysaan oo meel kasto ay gasho wixii ay idinka baahdaan inaad kala shaqeysaan idinkana konsul waxaan idinka codsanayaa isqabadkii iyo laalaabkii iyo isxaagashadii way soo dhamaatay waqtigeedii way qaadatay hadda laga bilaabo waxa la idinka rajaynayaa wixii dadku han weyn baa dadku idin qabay hankii weynaa oo la idin qabay maanta la idinka rabaa maadaama idinku istoorateen aan cid dhex gelin cid kaambeyn la dhex gashay jirin cid waxa weeye kor idinkaga timi jirin idinku istoorateen si kalsoon la isu doorateen wixii la idinka rabay baa la idinka helaa oo degmadu idin doortay oo dadkiinu idin doortay inaad uga shaqaysaan danahooda oo cashuurta ugu horeyso oo caafimaadku ku xigo oo iskuulaadku ku xigaan oo nadaafadu ku xigto oo wax kasta ay arrimo jiro waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waftigii wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha horeeyay gudoomiyaha gobolka ku xigay iyo agaasimaha dowladda hoose madaxda xisbiyada saaxiibaday dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baan mahadsantihiin guddigii baan mar labaad u mahadcelinayaa shaqada tan qabtay aad iyo aad baan u mahadsantihiin